ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada xilligaas maxay ku saleysneed ilintii kusoo dhaaftay aad baa u mahadsantahay Yuusuf Carab waan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaratay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnay dareenka farxadda lahaa oo ay muujiyeen dadkii ka soo qayb galay xafladda arooska dadka ka soo shaqeeyay wax anigu aan maaratay aan control karay ama aan xadidi karayna ma ahayn waa dareen ay iga keentay xafladdeedii arooska markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada Soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen laba qodob ayaana loo badinayaa marka ugu horeyso Soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaana meel fagaara ah marwo xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan waa dhif iyo naadir midda labaad xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga aan lagu ogeyn jiljileec markaas ay falcelintu ugu badneed ay ku baahday labadiina si toos ay ku saameynaysaa maxay tahay jawaabta aad bixinaysid jawaabtaan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si qaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan mar walba wax fiirinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato wixii xunna laga tago ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan waa xoogaa laga fiican yahay wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inaan la noqdaan wax wanaaga anigu dareenka aan muujiye ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya marka waxaan isdhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuu ay angageen oo wax naxariis ku jirin iyo wax jacayl ah marka maxaa ku micneen kartaa adiga dareenkaas waxaan ku micneen karaa dareen farxadeed inuu yahay dadka sida khaldan uga falcelinayna waxaan ku micneen karaa inay yihiin dad aad aragtooda u liidato marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday maxaad noo sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeertay wallahi waqti aad badan buu qaatay muddo 5 sano ku dhow weeye waxaan kaloo oran lahaa de qofku dareemi karaa qofka marka meel kale ku kala nooshihiin qofkii ma ka tagay ma kula jooga qofkii qof kale ka doortay asagii kalsooni ku qabo waxyaalo badan baa isweydiinaysa marka riyadaas ku riyoonayso markii aad ku guuleysatid wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso de inna kala tashan maysid marka telefishinka SBS wuxuu fursad ku siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyay oo ilaahay calaf isugu kiindar adigii iyo marwadaada marka eraygaas aad dhahayso maxaa ka mid ah eraygaan dhahayo wuxuu yahay aan ku soo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan rag iyo dumarba dumarkuna inay u dabacsanaadaan ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda waliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriya waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyay ma nin doqonaa laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba oo farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminaya inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh